Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo ka mid ah salaadiinta deegaanada Hirshabeelle oo shir jiraaid ku qabtay magaalada Jowhar caasimada dowladda Hirshabeelle ayaa waxa uu fariin iyo dardaaran u diray dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarena uu ka yahay Xasan Cali Khayre waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mudane madaxweyne hilaac biis waa cadeystay annaga beesha Jareer-weyne haddaan nahay dowladdaada waa taageersannahay macaarid kuma nihi jareera macaaridku ninka uu yiri asaga keeni doono meeyuka keeni jareer waa dhiban yahay jareer lama dalacsiyo jareer lama khaymeeyo waxaase uu sheegaynaa islaamka nin ilaahay abuuri nus waa leeyri oo naaq lagu tilmaamay maxamed siyaad bare intuu joogay jareer nus lama dhihin Rashiid ayaan markuu joogo nus way lama dhihin aad markuu joogo nus way lama dhihin Ali Mahdi markuu joogo nus way lama dhihin waxaan rabnaa Soomaali weyn nimanka afarta oo unka u tun weyn la yiri adduunyada afarta madhab nin rag nus way meehi dhageyso mas'aladii ka rabnay maxkamadan diyaar u nahay annaga haddii ilaahay raali ka noqdo 2020 ama 2021 inta nusna la leeyahay dawladda ka qayb galimayni gooni ustaaga ayaan noqonaynaa nusana lagu tilmaamay meesha nusku noqonay aflagaadada ka imaanayso jareer zinjibaran ka soo gadanay xirga inoo xirxiriyiin war annaga warshadii adduunyada u horeysay oo Afrika dadkii bixiyaan nahay talyaani qandaraas la galay soo tasriyaal la galay marka magacaas nuska anagu waana dhibi mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa gobolkii laga taageeray awadii lagu doortay oo kugu baxday Farmaajo iigay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maartay ku amaanay ana Farmaajo iigay ku yiri Farmaajo anagu madax managa xiirtay mana soo kormeertay biyaano lagu deey dib walba dhacay adduunyada wax walba ka dhacay ilmaha adoogood hadduu safar jiro nanac garameel xataa waa uu keenay aaba biri waxnoo keeni yaa yiraahin Shabeellaha Dhexe dibka ka dhacay oo ilaawday oo gadaal u soo dayin annaga doodka manihi macaarid kugu manihi Farmaajo majarmu kuleenihi lama taqadda abadan hatta la tamuuto anu jareer dinay sagaal gobol aan degno waxaan nahay taageeradaadii aan nahay ilaahi ma oga cid aan ka cabsanayno ma jirto cid buuxan kugu leeyahay aniga ku hadlayo magacii qoomida Jareer-weyne Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb duuban 30 sano duuban qolqol gadaashiisa caana boor leegu shubin koofi bakaara leegu soo gadin adeerka uu dikreeta uu siiyay oo saxiixay maxamed siyaad aan gacanta aan ku haasto Xuseen kulmi aan gacanta ku haasto cid aan dulmini ay jirin annaga nuskaana dhibay waxaan ku baryeynay nuskaana dhibay nus inta oo maartay nala leehane dastuurna mala ansixi karo mana taageerayni dastuur 4.5 lagu soo dhisane dastuurkaas qaranka la dhiso hayne hal nimo jareer ah noo jiro oo noo fadhiyo ma jiro ama xanta ama sirno soo gudbinaya ma jirto hal agaasima lagu sheegay agaasima ma ogin aan cid soo dirtay cid wakiil yahay jareer maanta cid dastuurka uu fadhiso oo wakiil aga ma jirto waxaan ka rabnaa dadkeegi ma dalacsana hal nima Xasan Sheekh aw jananka dhigi janankiina waa joogi way duurka aw qaadi jareer garaad lama siinin lama khaymeeynin anaga hungurina si kuma leeni laakiin nuska ana laga dhaaf waxa afeef ka nahay Soomaali weyna afeef ka nahay nin ilaahay abuuri oo liire nus way arijaalo qawaamun al nisaai meeshii anaga nus oo tawxiidka anaga dhacay aniga jareerana sagaal gobol aan dagay dal iyo dadaal leh warshadii Afrika ugu horeysay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa talyaani ka aasay annaga dib u dhisdiidi meeyni maalgelin diidi meeyni laakiin waxaan ku diidagnahay nus way dastuurka hadda qabyada oo la wadane afar iyo bar hadii lagu soo qorane muwaafaqsani ilaahay ma qorin ilaahay ayaadiisa ma aha dastuurkaas annaga oo afar iyo barka lagu gortamooyo kuma jirno mana loo asixi karo ninkii ama duub ama maartay siyaasi ama xildhibaan
haddii nus oo lagu maqlo waa fadhi iraane jareer jawaab ku sii doono anigu bixinay jareer jawaab ku sii doono annaga nuskaas waa diidnay anagu dawladda diyaara u nahay waa ku adeecsanahay mudane farmaajo xasan cali khayre gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare gaashaadhiga annaga isbaar u dhigmaynay dawladda farmaajo waxaan jecelnahay dawladdaada inay shaqayso waxaan jecelnahay waa ku taageersanahay laakiin jareer nus waaye ma kugu ayideyni mana kugu raacayni sagaalka gobol habar ninkii dhashi nus ku fadhiisto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu